wadsalamantihiin qarabo maanta waxa aan idin wada xalqadii laba aad ee manhwadii inu socotay waxa arkayay dad leh manhwadii hore soo dhig sida aan idin sheegay manhwadii hore 7 maalmood hal mar ayay soo baxda waxaana rabay in aan idin sheego 3000 imika waxa inooga hadhay 60 qof insha Allah waxa aan rajaynayaa in aad videogan nagu gaadhsiisan kuna saliya nabiga Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ina bilaaba mana dhamiisi waxay gaartay hal wuxuu tixgeliyay in xirfadaha bogsiinta ee ku dhawaaqaha ay runtii yihiin kuwa naxdin leh wuxuuna weydiiyay Hiyaway hadduu haysto wax dharab oo dhiig bogsiya wuxuu yiri wuxuu haystaa mid degdeg ah wiilkayagiina wuxuu ku yiri ha cabo weerarka khiyaanada waxay hadda haysatay 85 ilbiriqsi oo waqti ah maamuluhu wuxuu bilaabay inuu dilo makhluuqaadka kale Yun wuu ogaa inuusan weli u dhigmin maamulahan laakiin makhluuqaadkii yaraa waxay dhammaanayaan waxa uu haystay qorshe maskaxdiisa isagoo soo bandhigaya seeftiisa wuxuu weydiiyay Hiyaway inuu hal daqiiqad u adkaysto maadaama uu doonayo inuu dhammeeyo makhluuqaadka Hiyaway wuu yara yaabay wiilkayagii wuxuu u dhaqaaqay sidii onkod isagoo makhluuqaadka jarjaraya waqtigii weerarka khiyaanada wuxuu gaaray eber Yun wuu heer sare u kacay isagoo soo celiyay dhiiggiisa iyo mana dhamiisi ilaa 420 wuxuu kiciyay weerarka khiyaanada isagoo si istaba joog ah u isticmaalay qodaxyada fowdada markasta oo mana la isticmaalo waxay kicisay saameynta weerarka khiyaanada oo weerarkiisa kordhisay 10% markasta oo kiciya wuxuu ogaa inuu u baahan yahay ugu yaraan 4% korodhka weerarka si uu uga adkaado maamulaha wuxuu bilaabay inuu sii xasuuqo makhluuqaadka badan mar kale ayuu heer sare u kacay taasoo mana dhamiisi soo celisay 110 wuxuu kiciyay qodaxyada fowdada taasoo siisay 10% korodhka dhaawaca weerarka oo mana dhamiisi hoos u dhigtay 101 wuxuu ku celiyay kicinta qodaxyada fowdada isagoo helaya 10% kale korodhka weerarka iyadoo mana dhamiisi ay hoos ugu dhacday 92 wuxuu garwaaqsaday inuu u baahan yahay inuu qodaxyada fowdada kiciyo 40 jeer 50 ilbiriqsi gudaheed taasoo la macno ah inuu u baahan yahay inuu gaaro heer 10 Hiyaway wuu argagaxay ma rumaysan karin waxa indhihiisu arkaan Yun waxa uu heerar sare u kacay dhowr jeer maamuluhu wuxuu diyaariyay inuu weeraro laakiin wiilkayagii wuxuu bilaabay inuu iftiimo waxa uu hadda ahaa heer 12 weerarka khiyaanada wuxuu lahaa 510% korodhka iyo 95 ilbiriqsi oo waqti ah taasoo ka filan si uu ula dagaalamo maamulahan Yun wuxuu u dhaqaaqay sidii danab isagoo gooyay gacantiisii kadibna gadaal ka soo muuqday oo ku soo riday taxana jaris ah taasoo makhluuqda siisay xanuun baan ka hor intaanay wax ka falcelin wiilkayagii wuxuu jarjaray jidhkeedii hal ilbiriqsi gudaheed wuxuu ka adkaaday maamulaha heer 21 ah kaasoo lahaa in ka badan 10,000 oo dhiig kadib markuu dilay maamulahan wiilkayagii wuxuu helay 3 heer oo kor u kaca isagoo hadda heerkiisu yahay 15 Hiyaway wuu yaabay ma uusan ogeyn inuu riyoonayo isagoo la yaabaya haddii ku dhawaaqaha heer 5 ah uu keligiis ku nadiifiyey qalcad gebi ahaan cusub hadda oo maamulaha qalcadda la adkaaday qalcaddii waa la nadiifiyey wuu soo dhawaaday wuxuuna weydiiyey Yun haddii runtii isagu yahay makhluuqaadku waxay daadiyeen walxaha nidaamkuna wuxuu ku booriyey wiilkayagii inuu soo ururiyo Hiyaway wuxuu doonay inuu ogaado sidii wiilkayagu si lama filaan ah u xoogaystay wiilkayagii wuxuu bilaabay inuu xasuusto taariikhdiisii markii uu arkay wejiga Hiyaway wuxuu weydiiyey xiriirka uu la leeyahay Hiyobemben Hiyaway wuu argagaxay ma uusan ogeyn sidii Yun u yaqaanay naanaysii awowgii Yun wuu yara yaabay markuu ogaaday inuu yahay awow uu dhashay Hiyobemben wuxuu bilaabay inuu xasuusto Hiyobemben indhihiisana waxaa ka buuxsamay murugo maadaama dhammaan dadkii uu yaqaanay ay dileen Lui ka hor intaanu wax badan weydiin oo ku saabsan Hiyobemben Hiyaway wuu weeriyey indhihiisii wuxuuna sheegay inaanay loo baahnayn in hadda laga hadlo haddii Yun uusan doonayn inuu u jawaabo su'aashiisa ma uu baahna inuu wax sheego mana uu baahna inuu sidan u bahdilo Yun wuu yara wareeray ma uusan ogeyn waxa dhacaya Hiyaway wuxuu sheegay in kastoo uusan ogeyn sababta Yun uu qarinayay xooggiisa dhabta ah waqtigan dheer wuxuu ku taliyey inay ku noqdaan iskuulka maadaama berito ay iskuulku qaban doonto booqasho hoolka xusuusta taariikhda casriga oo haddii fasalka laga baxo la ogaan doono Yun wuu cadhooday wuxuu si adag u qabtay sacabkiisa wuxuu go'aansaday inuu dhegaysto laakiin qalbigiisa hoose wuxuu ogaa inuusan weli daaha ka qaadi karin aqoonsigiisa haddii Hiyaway si badan u baadho wuxuu noqon karaa mid shakiyey Yun waxa uu ka fikiray hoolka taariikhda casriga waa inuu haystaa diiwaanno ku saabsan waxa dhacay kadib markuu dhintay maalintii xigtay waxay raaceen tareenka dhulka hoostiisa si ay iskuulka u tageen ardaydu aad bay u faraxsanayd waqtigu aad buu isu beddelay kadib markii uu sannado badan dhintay adduunku si weyn isu beddelay
ma rumaysan karin in hadda loo isticmaalo alaabta qalcadaha si loogu tamariyo gawaarida. waxaa soo baxay waxyaabo badan oo uusan weligiis horay u arkin, inkastoo uu qaarkood ku arkay qalcadaha waqtiyadii hore. wuxuu furay bakhaarkiisa nidaamka. waxa uu la yaabay in walxaha ay daadiyaan makhluuqaadka oo keliya lasoo bixi karo qalcadda. wuxuu qaatay giraanta lafaha jimira. waxay ahayd giraan heer 14 ah oo laga sameeyey feeraha maamulaha qalcadda hilibka iyo lafaha. waxay u oggolaanaysaa qofka xidhan inuu ku xidho xubno jimiro ah jidhkiisa. wuxuu ka soo qaatay bakhaarkiisa buugga xirfadda jidhka adag. waxa uu ahaa mid tayo sare leh, nooc xirfad dabiici ah oo darajadiisuna tahay mid caalami ah. wuxuu ogaaday in qalabkan iyo buugaagta xirfadaha loo soo bixi karo bakhaarka, lana iibsan karo ama laga iibsan karo meelaha ka baxsan qalcadaha. wuxuu kiciyey xirfadda jidhka adag. waxay ahayd xirfad joogto ah oo hoos u dhigta dhaawaca jireed ee soo gaara. waxyaabaha bakhaarka lagu kaydin karin kadib markii maamulaha la dilo waa inay la baaba'aan qalcadda. indhihiisii waxaa ka buuxsamay wareer. ma uusan ogayn waxa dhacay kadib markuu dhintay. wax yar kadib waxay yimaadeen howlka xusuusta taariikhda casriga. waxa ugu horreeyey ee uu arkayna wuxuu ahaa taalada Louis, taliyaha ugu sarreeya boqortooyada, imbaradoorkii soo afjaray masiibadihii qalcadaha. macallinku wuxuu bilaabay inuu ardayda ku hagayo howlka. wuxuu sharaxay in arday badani ogaadaan in meeshan in ka badan 50 sano ka hor ay ahayd goobta dagaalka kacdoonkii caanka ahaa. macallinku wuxuu sharaxay in wakhtigaas ay si weyn u dhibeen qalcadaha, gaar ahaan kadib markii qalcaddii ugu xun uguna naxdinta badnayd ee heerkas ay soo baxday oo qof walba cabsi ku noolaaday. boqor Louis ayaa isagu hogaamiyey ciidankii xirfadlaha ahaa ee u dagaalamay. inkastoo khasaare culus soo gaaray, haddana wuxuu ka adkaaday qalcaddii argagixisay. laakiin isla markaas wuxuu la kulmay kacdoon muddo dheer la qorsheeyey. qorshaheeda sida qof walba og yahay wuxuu ahaa Yun. Yun waxa uu ahaa ninkii boqorku si weyn u aaminay, laakiin ugu dambayn wuxuu noqday khayaan aan mahadnaq ahayn. Yun wuu cadhooday markuu arkay intaasi ay tahay waxa taariikhdu noqotay. iyagu waxay ahayd kuwii nadiifiyey qalcaddii heerkas, iyo iyaguna waxaa laga dooday meel dhaca. macallinku wuxuu si adag u qabtay sacabkiisa isagoo sheegay inaanay qiyaasi karin xanuunkii lagu khiyaameeyey duruufahaas. laakiin boqorkoodu wuu ka adkaaday murugadaas, wuxuuna u dagaalamay dhiig iyo geesinimo. ugu dambayn, iyadoo la kaashanayo geesiga Dingun, wuxuu si guul leh u xakameeyey kacdoonkii. indhihii Yun waxaa ka buuxsamay xiiso markuu maqlay magaca Dingun. waxa uu la yaabay haddii uu jiro qof caynkaas ah. markaasaa waxaa soo muuqday dulmayaashii harada ku dhibayay Yun oo yara wareersan markay arkeen inay weli nool yihiin. waxay la yaabeen sidii ay suurtogal ugu noqotay, maadaama isaga iyo Xioi ay ku jiidayeen qalcaddii cusbayd ee soo baxday. mid ka mid ah dulmayaasha wuxuu sheegay in qalcaddii la nadiifiyey, oo qalcad cusub si dhaqso ah loo nadiifiyo waa inuu ahaa nin xirfad leh meel u dhow. sida uu sheegay, waxay ahaayeen kuwo nasiib badan oo helay xirfad leh. indhihii Yun waxay ku dhammaadeen iyaga. markuu garwaaqsaday inay yihiin kuwii dhibayay milkiilaha jidhkiisa, qof walba wuxuu bilaabay inuu u soo dhowaado Dingun si uu u ogaado waxa uu ka hadlayo. iyagoo si buuxda u rumaysan la'aan, waxay la yaabeen haddii runtii uu la kulmay qalcad cusub, iyo in ka sii naxdin leh haddii uu ka badbaaday masiibadaas. Dingun wuxuu gacantiisa saaray garabka Xiyo, wuxuuna sheegay inuu nasiib wanaagsan yahay inuu nool uga soo baxay. wuxuu bilaabay inuu ku shusha, isagoo sheegay inay maalintaas ku dhowaadeen inay ku jiidaan qalcadda, wuxuuna weydiiyey siday u qorshaynayaan inay bixiyaan deyntaas. Xioi wuu baqay, wuxuu caddeeyey inay ahayd khaladka Dingun. wuxuu u hanjabay inuu warbixin ka sameeyo, isagoo ku eedeeyey inuu sababay dhimashadiisa iyo Tayun. Dingun wuxuu qabtay madaxa Xiyo, isagoo weydiiya waxa maskaxdiisa ku jira, wuxuuna garwaaqsaday inuusan waxba ka ogayn xaaladda. Dingun wuxuu ku booriyey Xioi inuu eego taalada hortooda, oo uu arko awowgiis oo ay ku burburinayaan geesigii. wuxuu daaha ka qaaday inuu yahay khayaankii Xen iyo in Xioi uu yahay farcankiisa. ugu dambayn wuxuu weydiiyey haddii runtii uu qof u qaato dhinaciisa. Dingun wuxuu bilaabay inuu qaylo, isagoo sheegay in Xiyo uu caayo isaga, laakiin uusan caayi karin awowgiis, taasoo Xiyo ka tagtay argagax. qof walba wuxuu bilaabay inuu isu soo ururiyo, iyagoo ogaaday in awowgii Dingun uu ahaa geesigii Dingun. markuu maqlay tan, indhihii Yun waxaa ka buuxsamay cadho. ardaydii waxay garwaaqsadeen in qofka ku soo dhowey ay yihiin Xioi, farcankii khayaanka. iyaga farcanka khayaan oo caaya geesi waxay ahayd calaamad dunida rogmatay. waxay xusuusteen in awowgiis Xen uu dilay dad badan, oo haddii geesigu faragelin lahaa, qof la yaqaan inta kale ee dhiman lahayd. Dingun wuxuu bilaabay inuu yeelyeelo, isagoo caddaynaya inuusan dan ka lahayn waxa laga sheegayo gadaashiisa. laakiin ma oggolaan karo inuu caayo awowgiis wejigiisa. macallinku wuxuu soo dhowaaday Xiyo, gacantiisna saaray garabkiisa, wuxuuna ku yidhi inuu raaligelin sameeyo.
wuxuu u sheegay in macallin ahaan uu had iyo jeer cadaalad ahaa wuxuuna xusuusiyey in geesigu hore uga cafiyey qoyskiisa. wuxuu ku soo gabagabeeyey in xitaa hadduusan u mahadnaqin tan uusan xaq u lahayn inuu caayo. kadib markuu hadlay macallinkii wuu iska tegey. Dingun wuxuu gacantiisa saaray madaxiisa wuxuuna sheegay in hadduu dadweynihii hortooda ku dhufto dadku uun ku dhiirigelin lahaayeen. qofna ma caawinayo ay xun oo la garaacayo. waxaa dheer Hiyoi wuxuu ahaa ay gaar loo necbaa. wuxuu qabtay timaha Hiyo wuxuuna weydiiyey haddii runtii uu aaminsan yahay in isaga farcanka geesiga uu khaldan karo. wuxuu diyaariyey inuu ku dhufto Hiyo laakiin markaasaa qof ku dharbaaxay wejigiisa cag isagoo dhulka u soo tuuray. indhihii Hiyo way fureen. wuxuu ahaa Yun indhihiisa waxaa ka buuxsamay cadho. asxaabta waxa aan idin sheegaya in ay xalqadii 22 aad ee manhwadii hore ee ina socotay in ay soo baxday masodhiga mise manhwadan ayaa idin sii wada. waxaana aan idin xasuusinaya in aad subscribe channelka ino tiraahdan si aan 3000 waqtiga ugu dhow ku gaarno wad mahadsantihiin.